Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وطا والنبي محمد أرضي ريسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن الصارة إسلام كأقول سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبيل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما دولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله هلكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك صحابة ما هم العرب كدولي الله من ما أدوية لداف سنكر ماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي ويانو إلهي كو تعلق سن هو يرى بقرك ما كلا تاين النصرانية دا سوى قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameestiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kay wallahi ma facaltu buu طرفة عين diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوقيان يكون إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوه ما أركان فحال السماء مركا بغركي أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiinta inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah sagiba marka la dul keenay oo xidhan kan noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii ilaahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxaad loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa ومد والبينتو مر هلكا لا دول كينو الهي درتي ايغا بخي لهيد تاسان تمنيونن هيسنو كوي يا بوكيد تفكلي ماها كما يلنا فين ليغو ابوري لها ومد والبالكا انتو لا دول كين الهي درتي ايغا بخي لهيد تاسان تمنينا يا من هيستو بوكيد بقركي بايدي كان دلغيس waxay noo tari maaye haska sii deyno way hay sii daada ma kula tahay bukaydi madaxayna adiga dhunkan وانا كسي دينه مرقاس المقال برمضة حقدهم كذا ساقي بس لا شورست شرط بو كحرو وحود هدي مسلمين تا إلى حرن أدي سي دينه سيدها وان كاردون كان هدي كلا كاردون كان ما يبوكو يدي مرقاس الوحاجة يقدون كو مرقاس المقال برمضة حقدهم كذا أنا أصحاب النبي محمد كمدا رجعه ويسي دينه يسوما هنا وكاردون كان اللي برير بالجهاد بنقصوا علينا كلا بحمهنا عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالان عمر بن الخطاب سو دhoweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yiro ragii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudhafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadu u baxay hebel dibadu u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay قالنا لا شقيسو ايا مانتا مسلمين هورمر و اركان قالدا دلكوغا inaan tagno ayaa maanta muslimiintu horumar u arkaan
iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday hasalaamin Umar baa yiri balukaadii ha wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkataa wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si markaa uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri